xagee ka imanaysa in waryaama waxaa iman karta in ninna wuxuu raba gobolka ka sameeyo nin isaga la dhashayna wiilkiisa la qisaasoo tiirman karta ma soconayo wax soconaya ma aha cidniga yeelayaan qof alla qofkii isku daya gobolka in wax qaldan ka sameeyo nafya dhiig baa naga gashay dariiqi shaamareen baanu marsiinayna dhibaatada dhacday oo dhan kulligeed waxaa iskale ninka wasiirka arrimaha dibadda ah oo laashi 2 years anigu aan gobolka guddoomiyeedka ah xumaantaa ka shaqaynayay markaan ciidanka reform ku sameyn muu naga kala soocay lacag siiyo federaal baa kamid tihiin abaarihii hadda gargaarka loogu talagalay dowladda federaalka ee halkan laga qaadiyo ilaal axmed ay bixisay oo wasaaradda gargaarku ay sii dhiibtay isagoo wasiirka isticmaal uu qabay dad ku kala qaybiyo odayaal gaar oo wuxuu sii dhiibay waxaan macno lahayn oo guddiga abaaraha geeska mashay fidmadan hadda socotay odayaashan iyo lacag qaybintan iyo waan ogno isagaa ka sameeyey wixii meesha ka dhaca mas-uuliyadda dhammaanteed isagaa qaadanaya waana lagula xisaabtamaya qof cidlo la aadi kara inta ummadda fidno iyo xabad ka dhex ridaa ma jiro gobolkan annaga dhiil iyo naf iyo maal iyo wakti iyo baana galay umana ogolaan qofna inuu la dhex tago dadkii walaalaha ahaa oo intaasoo dhibaato kasoo biskooda inuu fidmo la dhex tago cid loo ogolaanayo cid ku ammaan helaysa inuu waxa noocaas ka shaqeeyaana ma jirto aan ku bilowna sidii aad warkeenaba ku dhagaysateen hal askari ayaa ku dhintay 3 kalena oo taliye ku-xigeenkii booliska gobolka mudug ee dhanka Puntland uu ku jirana way ku dhaawacmeen dhanka Puntland waa kadib markii sida la sheegay guri uu deganaa Cabdisiciid Cali oo ah wasiirka wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya la weeraray ciidamada booliska ayaana la sheegay inay weerar ku qaadeen gurigaas oo ay ku sugnaayeen wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo nabadoon Yaasiin Cabdisamad iyo odayaal kale halkaas ayaa wariyaheena Cabdiwaaxid Macalin Isaaq qasaarihii ka dhashay iyo waliba guud ahaan shaqaqada ku saabsan magaalada Gaalkacyo oo warbixintan nooga soo diray aad baan uga xumaa horta wixii dhacay Gaalkacyo meel aad in loo ilaaliyo rabta laba dawladood ka wada jiraan waxyaalaha ka dhacay caawa sida qaabta daran uga dhacayna aad iyo aad baan uga xumahay waxaanan aad uga tacshiinayaa dadkeena allah u naxariisto intii dhaawac u gaartayna allah caafiyo waana fitno loo soo xawilay oo aan iyadu ayan lahayn wax caawa ka dhacay howlgalka ujeedkiisa marka hore muxuu ahaa xogta aan hayo waxa weeye ciidanku inay guddiga amnigu maanta inay soo saareen maxaan ku idhaahdaa go-aan ah inaan siyaasadeed iyo qaybin bulshada ayan gobolkan qaadi karin oo la joojiyo kadibna waxaa la ii sheegay in ay meel afur ay ku samaysanayeen qolyaha shirarka wada ciidanku ay tageen oo weliba taliya dhan u tagay boolisku tegey dabeedna xabad lagu bilaabay waa meel haddii laga rabay in la yidhahdo waxbaa ka dhacay kadibna dad akhyaar odayaalina ku dhaawacmeen ciidanka askari kamidana uu ku dhintay marka dee waxay iska waxun caadiya oo si loo galay oo taliyaha u socday inuu marxaladda meesha ka jirta uu ogaado ama wax ka bedelo gobolkana waa og tahay oo dee howlgal joogto ah ka socdo oo dagaal baa lagula galay argagixiso dagaal baa lagula fidmo oo dhan dagaal galay adkey dagaal baa lagula galay qabiil iyo kala qaybin dagaal baa lagula galay siyaasado guracan waa meel intaasoo waxyaala kasoo kabanaysa sensitive-na ah marka ilaalintii laamaha amnigu marka ay tageen oo go-aankii guddiga amniga ay qaateen oo meeshii tageen dee dadkii raba inay fidnada huriyaan baa maogtahay bahashii ku dhex jiray oo horaa looga huriyey ma waxaa jiray cabsi maamulka gobolka iyo laamaha amniga ay ka qabeen shirar siyaasadeed oo ka dhaca gobolka kuwa oo khalkhal siyaasadeed ka abuura gobolka iyo xaalado ammaan darre dhibaatada dhacday oo dhan kulligeed waxaa iskale ninka wasiirka arrimaha dibadda ah oo laashi 2 years anigu aan gobolka guddoomiyeedka ah xumaantaa ka shaqaynayay markaan ciidanka reform ku sameyn muu naga kala soocay lacag siiyo federaal baa kamid tihiin abaarihii hadda gargaarka loogu talagalay dowladda federaalka ee halkan laga qaadiyo ilaal axmed ay bixisay oo wasaaradda gargaarku ay sii dhiibtay isagoo wasiirka isticmaal uu qabay dad ku kala qaybiyo odayaal gaar oo wuxuu sii dhiibay waxaan macno lahayn oo guddiga abaaraha geeska mashay fidmadan hadda socotay odayaashan iyo lacag qaybintan iyo waan ogno isagaa ka sameeyey wixii meesha ka dhaca mas-uuliyadda dhammaanteed isagaa qaadanaya waana lagula xisaabtamaya qof cidlo la aadi kara inta ummadda fidno iyo xabad ka dhex ridaa ma jiro gobolkan annaga dhiil iyo naf iyo maal iyo wakti iyo baana galay umana ogolaan qofna inuu la dhex tago dadkii walaalaha ahaa oo intaasoo dhibaato kasoo biskooda inuu fidmo la dhex tago cid loo ogolaanayo cid ku ammaan helaysa inuu waxa noocaas ka shaqeeyaana ma jirto dibadda federaal wasiirka arrimaha dibadda gudoomiye waxaad u jeedisay eedeyn culus inkastoo ka VOA ahaan aanan haynin caddayn muujinaysa in arrintaa uu ku lug leeyahay haddana xiriir aan la samaynay nooma suurta gelin maxaad caddayn u haysaa in wixii ka dhacay Gaalkacyo uu ku lug leeyahay ama ka dambeeyay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya idinka dee caddaynta dadkaad ka heshaane
kuma wataan caddaynta annaga ka shaqeyno mas-uuliyiin gobolka ka shaqeysa halka iyo dadka ka warqabna waxa soo gala iyo sida wax loo soo geliyo oo xogta hela marka caddayn buuxdaaba looba hayaado maba khaldanaba furum 2002 ilaa xilligan inta ka dhexle oo taliyaha amniga madaxweyne farmaajo ahaa ninkaasi wuxuu ka shaqaynayay khidmada gobolka dadkeeda in ka hortay aad buuna ugu dhex jiraa odayaashu dhex galaa ciidanku dhex galaa bulshada qaybo ka mid u dhex galaa waxaan xumaanahayna kamaba shaqeeyo waa nin dadkana inuu gobolka soo jeedo oo magac ahaan gobolka soo jeeda matoor shaydaana saaran yahay gudoomiye wasiirku maadaama uu ka soo jeedo gobolka mudug soo xaq uma lahan in kulamo uu la qaato qaybaha bulshada iyo waxgaradka gobolka cid u diidanaya ma jirto kulamo gaara iyo dadkiisa inuu la kulmiyo dadka la joogo laakiin wuxuu hadda u fadhiyo u joogaa fidmaa hadda shaqada wasiir arrimaha dibadda gaal ayay ka taallaa doorashay lagu kala teg oo laga soo kala tegayo baarlamaanadii waa hadda baarlamaanka la doortay siyaasad kaloo gaalka ayay taallaa ma jirto wasaaradda arrimaha dibadda federaal buu joogaado la rabo inuu ka shaqeeyo gaal hayso joogaa maxay tahay qaraabo iyo caruur degan ma jirto caruurtu waa diaspora dibadda u jirtaa markii hore jawhar buu ku dhasho aabbihi hooyadii midnama deganayn meeshu wuxuu joogaada maxay tahay hadduu sinna u tegin waabay iska muuqataa sidnuba u tegin wax iyo dadkaa inuu iska horkeeno iskadara inay dhacaan ah isaga unbay ku dambaynaysaa mas-uuliyadda isagaa iskale isagaan lagala xisaabtamaya isagaan ciqaabteeda gacanta la gelaya howlgalka gudoomiye waxaa qaaday ciidamada booliska gobolka mudug ee dhanka puntland xilli wasiirka arrimaha dibadda iyo odayaal iyo waxgarad ka tirsan gobolka ay ku kulansanaayeen guriga uu degan yahay wasiirka marka yaa qaadaya mas-uuliyadda weerarkaasi oo ciidanku inuu goob tagiyo inuu guri tago xabad lagu rido xagee ku banaan tahay ciidanku gurigu rabuu geli karaa ciidanku amniga gurigu rabo kashkiyu geli karaa qofku rabuu soo xiri karaa meeshay rabaan bay geli karaan ciidanku iyaga amniga u xil saaran yaa yidhi guriga haddii ciidanku gala waa dembi xabadha lagu rido maadaama guriga ciidamadu tageen guri mas-uul degan yahay oo mas-uul ka tirsan dowladda federaalka so xaq uma lahayn in marka hore ogeysiin iyo wax aad bixisaan yaa ku guri mas-uul ka hayn baa gobolka ka jira gobolka mas-uuliyad buu leeyahay gudoomiye gobol iyo gudoomiye degmo iyo maxaan ku idhaahdaa gudoomiye taliye qaybeed iyo maxkamaday leeyihiin qofka meesha joogaa marka inuu dowladda meeshan marti u noqdaa kuwa amnigiisa sugaan iyagoo ciidanka siiyaan yaa xagee ka imanaysa in waryaama waxaa iman karta in ninna wuxuu raba gobolka ka sameeyo nin isaga la dhashayna wiilkiisa la qisaaso tiirman karta ma soconayo wax soconaya ma aha cidniga yeelayaan qof alla qofkii isku daya gobolka in wax qaldan ka sameeyo nafya dhiig baa naga gashay dariiqii shaamareen baanu marsiinayna kaasi waxa uu ahaa marka caddayn buuxdaaba looba hayaado maba khaldanaba furum 2002 ilaa xilligan inta ka dhexle oo taliyaha amniga madaxweyne farmaajo ahaa ninkaasi wuxuu ka shaqaynayay khidmada gobolka dadkeeda in ka hortay aad buuna ugu dhex jiraa odayaashu dhex galaa ciidanku dhex galaa bulshada qaybo ka mid u dhex galaa waxaan xumaanahayna kamaba shaqeeyo waa nin dadkana inuu gobolka soo jeedo oo magac ahaan gobolka soo jeeda matoor shaydaana saaran yahay gudoomiye wasiirku maadaama uu ka soo jeedo gobolka mudug soo xaq uma lahan in kulamo uu la qaato qaybaha bulshada iyo waxgaradka gobolka cid u diidanaya ma jirto kulamo gaara iyo dadkiisa inuu la kulmiyo dadka la joogo laakiin wuxuu hadda u fadhiyo u joogaa fidmaa hadda shaqada wasiir arrimaha dibadda gaal ayay ka taallaa doorashay lagu kala teg oo laga soo kala tegayo baarlamaanadii waa hadda baarlamaanka la doortay siyaasad kaloo gaalka ayay taallaa ma jirto